Khamiista maanta ah waxaa ku eg shaqo joojin ay sameeyeen qareennada dalka Pakistan kadib markii horaantii toddobaadkan qarax dalkaasi ka dhacay lagu dilay 60 qareen oo u barooranayay madaxii ururka sharci yaqaanada Pakistan. Qaraxa waxaa sheegtay garabka ururka Taliban ee Pakistan oo ah Jamaacatul Ahraar iyo kooxda dowladda Islaamiga sheegata. Axmed Maxamed Xasan wuxuu bartay sharciga wuxuuna shahaadada labaad ku sameynayaa iminka qaanuunka caalamiga ah. Duraan Xasan Yare oo ah saxafi madax bannaan oo degan waddanka Pakistan ayuu uga warramay saameynta ay shaqo joojintani leedahay. Saameyn aad u ballaaran ayay yeelanaysaa shaqo joojinta ay ku dhawaaqeen qareemada dalka Pakistan. Saameyn waxa ay ku yeelanaysaa shacabka, saameyn waxa ay ku yeelanaysaa judicialka, saameyn waxay ku yeelanaysaa sidoo kale qareemada maadaama ay jiraan go'aamo saaran miisaska, sidoo kale in ay jiraan cases lagu xallin karo saacado maalin. Sidoo kale waxa macquul ah in ay jireen process soo socday muddo dheer la rabay asbuuca ama maalmaha gudahood in go'aankii ugu dambeeyay uu ka soo baxo maxkamadda. Marka saameyn aad u weyn ayay yeelanaysaa. Maxkamadaha ma shaqeyn karaan qareen la'aan, qareenkuna ma shaqeyn karo maxkamad la'aan, shacabkuna ma heli karo xuquuqda ka maqan oo dhameystiran hadduusan haysan qareen u dooda iyo maxkamad go'aanka ka soo saarta xaqiisa. Maxay tahay sababta keentay in la bartilmaameedsado qareennada dalka Pakistan? Kooxaha badanaa bartilmaameedsada qareemada dalka Pakistan waxay ku andacoodaan ama ay sheegtaan in ay doonayaan inay dalka ka hirgasho ku dhaqanka shareecada Islaamka, halka qareemadu ay isticmaalaan ama ay raacaan sharciga u yaal dalka Pakistan. Marka taas ayaa waxa la is odhan karaa waxay sabab u noqotay in had iyo goor la bartilmaameedsado qareemada dalka, balse tani ma cadda inay tahay sababta saxda ah ee ka dambeysa dilalka qareemada dalka Pakistan. Ma markii koowaad oo la bartilmaameedsado qareennada dalka Pakistan ba? Ma ahan markii koowaad ee qareemada Pakistan la dilo ama la bartilmaameedsado, laakiin waxa ugub ah oo markii koowaad ah in tiro intaa leeg oo kamida qareemada dalka Pakistan in hal maalin lagu bartilmaameedsado laguna dilo. Sida ay xogtu sheegayso ilaa 2001 ilaa 2016 waxa ay gaaraysaa tirada dhimashada qareemada Pakistan ilaa 100, laakiin 100kaasu waxa ay ahayd dhacdooyin kala duwan, mar hal qof, mar 2 qof, mar 8 qof, mar 10 qof, laakiin ma dhicin Pakistan hal maalin in tiro intaa leeg hal goob lagu dilo qareemada dalka Pakistan. waana tiro aad u xun, aadna looga xumaado. Dadka reer Pakistanna dhacdadadan waxay ku abuurtay naxdin aad u weyn. sidoo kale waxa ay naxdin ku abuurtay dawladda Pakistan, judicialka Pakistan, maadaama ay ahaayeen qareemadadan qareemo ka diiwaan gashan judiciaryga dalka Pakistan. وهجاكسنا وحوها محمود ورمي وريها BBC باكستان halkaasi madaxa banaan nooga soo warrama dalkaasi oo Duraan Xasana waa tahay